nin marka dhaan wadayo ritiya oo ceelasha ka soo baxayo mindhaa iska sii rabeen oo iska sii foofo iyo waxaa wada kulmay baabuurtii iyo nimankii way xabadeeyeen xabadihii ku rideen ritigii lagu ka jab marka haamankiina waa saareen ritigii waa cabaada lugtina u laabantahay ninkiina way dileen oo xabadihii ku dhacay ugu horreeyay ninkii marka dhulku yaala wuu rafana igama dheero laamigii geeskiisa kala waay marka waxaa ninkan muxuu la rafanaa ritigiisa waxaa muxuu la cabaadaa meesha maro inuu fariisto xabadan waa maqlaysaa xabadii waa maqlaa laakiin wax ku dhacay mid qaar wax ayin ma qaan sharq xabadaha shaqantooda iyo bashta iyo wax yara waa yaabaysaa iyo taangigii isna madaxii iga xanuujiyo laamigii jijibinay السلام عليكم صاحب يال ميل الباد جوجتان كلنتي wanaagsan khiyaaray ku soo dhawaada ha noolaato aniguna waa yaan la Xuseen Cabdi dadka Soomaalida qabiil ahaan iyo qaran ahaan badhaawac weyn ayaa soo gaaray waxaan uu ka soo gaaray gacanta dad arxan laawayaal ah oo u taliyay ummadda isla markaana wali doonayay inay u taliyaan waxaan ka sheekayn karnaa oo maanta barnaamijkeena qaybo kala duwan uu noqon doono waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha soo maray wadankeena gaar ahaan marka laga hadlo maskaxda dhalinyarada Soomaalida ee jiilka hadda jooga waxa ka muuqda maskaxdooda dhibaatooyin nolosha ka soo gaaray waxyaabo ay soo arkayeen oo ah ciidamo dawladeed oo dad laynaya qabaa'il hubaysan oo qabiil kala laynaya waxa soo dhan waa waxa qofka Soomaaliga ah jirkiisa ka soo baxaya ama maskaxdiisa ka soo maaxanaya ee uu yaqaano oo kaliya waxa soo dhan ayaan ka sheekayn doonaa laakiin qaybta koobaad ee barnaamijka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo wariye Xanaan Shidane oo ah gabar wariye ah oo ka shaqeysa saxaafadda Soomaalida Xanaan waxay nala wadaagi kartaa waxyaabaha ay u soo joogtay gaar ahaan iyada marka laga hadlo burburka qoyska iyo mashaakilka nolosha ee qoyska Soomaalida ka dhex jira iyo sidoo kale barbaarka ubadka Soomaalida ay ku dhex barbaaraya Soomaaliya mashaakilka ay la soo kulmeen iyo waayihii ay soo arkeen ee xanuunka badnaa ee noloshooda soo maray Xanaan Shidane aad aan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo ku soo dhawo barnaamijka waxaan ka sheekayn doonaa wax badan oo aan rabo inaad nala wadaagto oo ah waxyaabo aad ka hadasho qaarkood laakiin aadan bulshada weli la wadaagin kama sheekaynayno wax dad kale ah waxaan ka sheekaynaynaa sheekadaada markaan leeyahayna waa 1,000 qof oo Soomaaliya ama 1 milyan oo qof oo Soomaaliya sheekada kula wadaagta laakiin ma sheegaan Xanaan soo dhawow ugu horeyn waxaan ka sheekayn doonaa bal barbaarkaagii si aan u ogaano qofta ay tahay Xanaan waa aad u maasan tahay ayaan le ha noolaato horta sharaf ay tahay inaan caawi aan soo hor fariisto maadaama aan daawadayaasheeda kamid ahaa marka walaalkay horta marka hore waxaan ku leeyahay maasan tahay waan dhawaah soo dhawow dabcan Xanaan Shidane dadku inta horta taqaana oo mowqayga ama magacayga taqaanaahu ma oga noloshaydii hoose iyo noloshii aan soo maray gabar waxay arkaan meeshaas muxuu ahay kamid ah dadka Soomaaliyeed gabar iska qurux badan oo meesha ka sheekaynaysa laakiin mooga waxa meesha ka timid waxay tahay waay meesha ka timid marka waxaan ka sheekayn doonaa waayahayga nololeed waay xilligii aan wax garasho maskaxeeda wax garto aan ka bilaabay iyo maanta la joogo oo aan muxuu ahay 30 dhaafay aan ahay aan hooyo weyn marka garashadaada bilowgeedii waxa kugu horeeyo indhaha ku kala qaado maxay ahaayeen subax ay ahayd horta inay sabti ahayd aan jeclahay laakiin xoog ma xus laakiin sabti ahayd aan jeclahay dugsiyaan ka imid quraan waxaan gashnaa cambuur cad qamaar yar oo madowna oo baati yar oo madowna korku ii saarnaa kitaabadii aan gacanta u haystay adiga 5 jir camal ina ahaayaan jeclahay 5 jir meelaasna aha aan wax dugsiyaan aada subaxii hore anoo guriga oo la jiifaan tagay dugsiga aan kaliya baxay aan soo noqodkii aan soo noqonay aan guriga ku soo noqonay laamiga aan waxaan ka war helay laamiga raba inaan gooyo geesaha iska fiiriyo Soomaali waa taqaan cunug markuu subaxii dugsiga ka yimaado aad u ordaa guriga quraac ka doonaa laamiga aan xoog gooyay laamiga aan gooyay marka waxaan ka war helay baabuur 2 baabuur oo sawirkii markii aan haddeer cabiro u ekaayeen baabuur tuutaha cagaarka ku sawiran yahay oo wuxuu ahaa beeba ah midna wuxuu ahaa tangi baabuur adigu shaagag weyn loo ahayo haddaan ogahay inuu tangi laakiin shaagag laho xiran oo hal nin madaxiisu kor ka soo jeedo qori dhoon weyn saaran yahay oo u ag ciid kalarka ciid ku buufsan yahay marka waa tuutaha oo dhinacyadiisa kale marka waa 2 gaari labada baabuur laamiga xoog marka laamigu sharqamina marka taayirka waa tangi iyo beeb waa garguuraya waa guurna qarracaysa yiris waay iyo gees xageen joogna markaas waxaan joogaa cadaado waay gobolada dhexe marka laamiga caadana
waayaheeda hore waa meel waxay u badnayd si dhinaca qorax dhaca kasoo qorax dhaca waa meel dhadiyaho bannaan oo dooxa ah ay ahaan jirtay marka dhinacaan fiirshay gurigeena dhinacaan naga jira laami ranka dhinacaan fiirshay labadii baabuur laamiga socotay iyo halkaasoo niman wada qoryo wada wato dharkii baabuurtan ku buufsanaa camalna gashanna ay ordahayaan waa shaki marka wadnaha ay badbado waxaan maxay yihiin booyo xabaday rideen marka xabaday ay rideen ilaa markaas meel ceelasha jirtay la dhaho dhinacaan oo dadka biyaha muxuu ahay dadka xooleyda baadiyaha ka yimaada biyaha ka dhaansadaan xoolaha lagu waraabsado dhinacaan kale qorax soo baxaan waxa ku yaala matoor oo familkeenu ay lahaayeen meesha aan u degan doono laamiga ugu degtay matoorkii waa furan yahay biyo waastooyinku iska socdaan labada dhinac markaan fiiriyay marka waa shaki waxaan isdhahay xaaladdu ma degano qofnana ma socdo keliya socda nin marka dhaan wadayo ritiya oo ceelasha ka soo baxayo mindhaa iska sii rabeen iska sii foofo iyo waxaa wada kulmay baabuurtii iyo nimankii way xabadeeyeen xabadihii ku rideen ritigii lagu ka jab marka haamankiina waa saareen ritigii marka waa cabaada lugtina u laabantahay ninkiina way dileen oo xabadihii ku dhacay ugu horreeyay ninkii marka dhulku yaa lagu rafana igama dheero laamigii geeskiisa kala waaye marka waxaa ninkan muxuu la rafanaa ritigiisa waxaa muxuu la cabaadaa meesha maro inuu fariisto xabadan waa maqlaysaa xabadii waa maqlaa laakiin wax ku dhacay mid qaar wax ayin ma qaan sharq xabadaha shaqantooda iyo bashta iyo wax yara waa yaabaysaa iyo taangigii isna madaxii iga xanuujiyo laamigii jijibinay matoorkii aan fiirshay waa lahayd dadkii ehelkii qofna male matoorkii biyaha iska socdo xoolihii iska daaq iska cabay biyaha waastooyinka nolol waa la xiri jiray wax xiraa male marka dadkii magaalada maxaa ku dhacay waxaan isleeyahay marka maxaa ku dhacay gurigeena jiingad ah jiingadii aan galay sad marka jiingad u galay waxaan arkay dooradii guriga joogtay miiska ku ururdaysa oo socota ururdaysa waxaan isdhahay canjeelo dhinacan kaada canjeeladaan soo qabsaday darmuuskii shaah ku jiro waa cuni waay canjeeladaan waxaan ku samaystay qoo waay gurigiya marka xabadu waxay ugu dhacayaan shabaq camal waxa xabada ka soo dhex baxay nafti meesha ugu celi weys waxaan isleeyahay maxaa meeshan ka jiro kitaabadan iska dhigay waa baxay waxaan isdhahay marka hooyadii marka jirtay oo hooyo ma inta badan ay gurigeeda ay jirtay waxaan isdhahay guriga ayay aad markaan guriga ayay u sii socdo laamigii iska qaaday xabadihii sidii u dhacayaan dadkii sidii sharqanta marka xabad marka jiingada ku dhacdo marka waa sii maqlay qabqacda iyo waxa waxaan isdhahay meeshan waxaa ka qaldan ninkii ortigii aan ag maray dhiiggiisa wadaadaan ninkii fiirshay ritigaan fiirshay waxaan isdhahay ritigaan hamankan iyo meeshan maxaa silciyay ninka dhib qalmo ugu hayo bas laamigii aan iska sii saacay xabaday marka ugu soo rideen ninka markaa ma nool soo dhintay waa dhintay ba markii hore aan marayay iyo had markii hore uu dhirfanay markii dambe waa dhimsanaa wax iska yaal waa dhiiggiisa iska socday marka meeshan waa iska dhadiyo waa cadda marka dhaan wata ninkaas ritiga wata ritiga marka lugtu ka jooga meesha iska cabaada haamankii waa saariyihiin marka rarkii horogaa hore u soo hugtay bas waxaan is dhahay laami geeskiisa xabadihii marka soo xabadeen marada marka wata waa cadda madaxii baatigeerkan waa iska dhacay marka madax madow iyo waxaan wataa maracad marka way soo xabadeen waxaan is dhahay marka nin ma ii maleen madax madow waa la dilaa maqla jira marka waxaas waa wax madax madow marka wiilasha inta badan nimanka madaxa wuxuu saaran bas xabadihii u soo dhacay waraaqay marka magaalada ku daadiyeen waraaqa waxa ku soo waran qor haysta ee far Soomaali ku qornaa marka anu ma aqaan laakiin far Soomaali inay hadda aan wixii qoro inay far Soomaali ahaan isla bas xabadihii u soo dhacay maradii aan watay marka ay xabadihii dhulkii maradii iga gubatay maradii aan waa fariistay waxaan qabsaday ciidii dhulka jajayga ahayd aan maradii dabka isaga damiyay magaalada kaliya socda wax dhaqaaqa male maradii aan marka dabka isaga damina dhulkii aan taabtay maradii iska damina waxaan is dhahay taraq ayaa kugu dhajiyay lugta meeshaas waxay raahday iga taalo nabar waxaysan dhiigin waxaan isla dhiigaan xiita saasan iska tir dhiig iska socda ka booday marada dabka iga darnaa bas baawurkii saaka hadayta arkay oo ahaa beebaha dhinaca kale ka yimid marka aad waxay leedahay jeedo yar waxay leedahay wax oo jeedo yar baawurta guriga dhexda laga soo dhex baxo dhinacii kale qorrax soo baxay ahayd oo ka yimid waa ugu yimid marka uu dhagaha soo qabsado waxaan isla maraama waxna wixii qaylinaayo moor madaxu ka xanuujin laamiga u socdo dhagaha qabsado marka dhagaha qabsado ugu yimid oo istaagay marka kuwa xabada ugu soo ridaa maadaama ay iga dheeraayeen anigu waxaan isdhahay nin ama ku maleynaa ninaa gacanta ka soo taagtay qoorta baawurkii saasuu ii soo qabtay marka halkaasuu ii qabtay marada dhabarkeed dambe ah waana ila ugu dhaqaaqa markuu cabaar soo socdo kuwii halkaas xabada ku soo ridaayna markii saasuu gacanta ku dhahay mindhaa wuxuu isdhahay waa cunug waxa xabada joojiyay marka saas u samarna xaafad markuu ku laalaadinaya wala laadina baawurkii geeskiisa marka saraciisa aan kala laadaa kilida halkaasuu iga haya marka marada dambe isku haya lugaan firfirqsiina asana ku haya isaga ahayo markuu cabaar markuu socdo wuxuu ugu dhex tuura marka xaafad furan oo darbiya oo ugu dhex tuura meelahan xataa nabarada ilaado ay yeelaan ugu dhex tuura saas waan iska tagi markuu ugu tuura meelahan ka daqramay naag habaryar aan dhihi jiray hooyadii freen ahayna ka soo baxday albaabka way soo jiiday marka
guriga ugu soo jiiday jarar hoose ay gelisay gurigaa waxaa xabadan kaga soo dhigay shabaq oo xataa wiil yaroo meesha ugula xaglinaayo habre in soo gelisa ku dhacday meeshaan ku jirnay shibtiisaan ahayn waxaa qoraxdii aa dhacday anigu waa oyna waxaan inaan guriga ayay aado habaryaar marka dadku waxay leeyihiin cadowna soo galay cadowgeena soo galay I don't even know wax cadow marka laga wado habaryaar ayay hooya aada guriga ayay u socdaa naa alla ina joog alla ina shidano waa cirugtaa naa iga joog naa meesha ku jiray leeyihiin quraan aqrisanayaan maqrib marka qoraxda dhacday oo xaaladda xogaa kala dintay marka saakase idinku bilaabatay saakase noogu bilaabatay barqadiya noogu bilaabatay marka dadku ma guryahay ku jireen magaalada mar hore laga yaacay markii aad dugsi quraan ka soo baxaysayba waa laga kala tagay magaalada anigu waxaan is leeyahay inay dadku mindhaa maqalay sii haysteen waa dad waaweyn oo wax gara karo cadow mindhaa waxaan ay sheegayaan soo socdaan waa iska ogaayno ama waa laga sii cararay ama kadisaa qof kasta meel isugu aadiyey anigu marka guri galna ma aqaano keenayaan gala cidlo ahaa hooyana waxay jirtaa guri ayeeyo subaxii markii anagu dugsi kala aadno iyay u tagi jirta walaalkay iga yarna gacantay qabso jirta marka waagi maqribka markayna qorax sii gedunayso aan waxaa maqalna baawar yaroo hoon yeerinayo baawartan yararkaa inuu ahaan jeclo hoon yeerinayo laamigii oo meel dheer naga jirin ku yimid dhinaca ka yimid kale oo kaalkacyo dhinaceed heegto ay markii hore saaka kasoo galeen bas baawurkiyaa hoonkii yariyey waana kala wareegay dhinaca qorax bac oo dhadida ahayd oo dooxadii aada marka saa waxaa la wixii magaalada xabad ridahaya ama wax socdi waa daba raaceen habaryarihii baqbaq ka fiirnaa meesha laga wada fiirnaa halkaasi kulli u wada baxeen marka baawurkii daba raaceen oo hoonka u yeerinaya magaalada marka ka baxeen aa markaa sharqan magaalada kasoo yeereerta iyo leero la shishtay iyo dadka guriga kasoo baxeen guriga kasoo baxeen marka magaalada ka dhawaa joogan guryaha lagu jiro marka indhaa waxna waa carreeb anagii ma sugina albaabka markaan arkay in habaryarihii kala degeen waa baxay guriga hooyaan raadiyey guriga ayaan tegey dadkii soo qof kasta meel kasta aan sii maraa qof maydaha yaallo waa ka tilaabsanaa ma og waxaan kan dil waxaan madan yaa baabasha lagu jiftaa waa kasii gudbaa muxuu ahaay masaajidka agtiisa guriga ayay lagu hayay ku yaal guriga ayaan tegey hooyo ayaan u tegey iyo hooyo walwalsan iyadoo markaas rabtay in aniga isoo raadsiyo wixii kale hooyo waxaan dhahay hooyo maxaa dhacay hooyo ma hadlayso maandee ma nooshahay xabadka ingiliis ilaahay u naxariistay maandee ma noosha hooyo waxaan dhahay maxaa igu dhici karo dugsiyanka in guriga qofna ma joogo wax ma cunin tayad maanta marka wadnaha iboodbooday waxna ma cuni karin hooyo waxay tiri cadow waa magaalada soo galay dadaa magaalada soo galay waa ummadda waa baabash hebel waa dhintay hablaa waa dhimatay kan kul qabo umaha waxaa la dhashay waa dhintaysan waxaan niyada laakiin iska dhahay malakumoodka at least cadowga waa marka malag dadkan waxaas hebel waa dhintay malaga u yimaa maqli jiray waxaas dhahay waxa waaye malagka la sheegaa cadowga waa markaad sii socotay markaa meedadka meeqa ka tilaabsatay kula tahay anigu dhowr qof arkay wax badan arkay oday xataa aan aqaanay oo abti dhihi jiray waa arkay oo beerkiisii hadeeran inuu beer yahay dareemi karaa ama wadno yahay oo geeska yaallo waa ka tilaabsaday dooraa marka meel kasta doorooyinkii qaylinaya jidka tagso baxay iyaduna qayqaylin ma waxaas dhahay laftirkooda saxmadda dhinac ka samaysta wiil kale tolo leeyrahan dugsiga oo dugsiga islaaha jirna meydkiis waa arkay xataa waa u wacay hebel aan dhahay marka waa habeen doorada xataa lama xarin maqribkii doorada xilliga la xarin jiray haa xilliga la xarin jiray ummadda guryahooda kala soo feel iska cabdi jiray waa male wiilkii waa la hadlay axmed al dhihi jiray axmed aan dhahay ma ila hadlay marka waa tagnay waa meyd dadka dhamarka dhiiggaaba meel kasta qulqulaayba dhiiggaaba iska yaalba meel kasta marka guriga aan sii galahay awowgeyna oo ayay lagu hajiray guryaha awoyaashaan dhihi jiray guryaha awoyaal markaan sii galahay albaabkooda dhinaciisa waxaa yaaleen naag oo suuqa caano ley ahaan jirta marka madhayadan xabadihi asaga dhacday marka duqd naagta waa nooleed dhiiggiina waa socda marka waxaa maskaxdeeda ii geli weysay dadkii xagga yaalla ma hadleen dhiigguna waa kasii socday qof duqdaana waa nooshahay dhiigna waa ka socdaa way hadleen marka la iska ashahaadanay laa ilaaha illallah laa ilaaha illa iska leh waa ka tegay iyadina hooya u tegay qamaarkii yarkaa baatiga ma wato maradii cadbisaan wato oo haaf guban tahay lugtii anigi meeshiisu dhig iska roonaato xoogaa waa ka roona laakiin waa xanuuna ka jiro hooyo markaa u tegay hooyo murugootay artina arkay wiilkii yara walaalkii bashiiro yarna hooyo way hayso guriga kula jira waa la jooga iyada labadeennii iyo ayeeyo gabdhihii la jabaa la waayay qaarkood aa magaalada ka baxnay marka waxaa la dhahay dadkaa soo baxeen nimanka dad yaraa soo baxayay inta badan ma soo baxeen naagiyaa soo wada baxay ha laga baxaa la dhaha magaalada bes waa baxna marka iyo hooyo waxaan dhaha gurigeena iyo waxaan maytir soo bax gacanta lay qabtay aniga walaalkay ayeeyo gacanta la qabtay magaalada naka bixiyey duur meelaha nala geeyey duurkii anagu iska joogno ay hooyo waxay tiri dad soconaa raaca aniga ayeeyaa laiga teg marka ayeeyada waa yeeli ahayd ayeeyo waxay tiri xanaan ii reeb ayeeyaa meeshiyaa nalaga teg aniga ayeeyo bisaan nalaga teg aniga ayeeyana ku harma rabin waa cabsanaa dadkii cadowga iyo wixii la sheegaya dhiiggii inaan arka ma rabo meeshaan nalaga teg hooyo waa naga tagtay marka baabuurkii ciladhaanta ahaayo meesha yimid baabuurkaas ayaa sheegay in la baxay marka baabuurkaas ay daba raaceen cadowga waxay dhahayeen dadku baabuurkii hoonka yeeriyo yimid ay daba raaceen baabuur cadow xataa ah waa xasuustaa laan guruusul daboolo maaha marka baabuurkaas ay yiri magaalada laga baxa miya maya baabuurkaas waa dadkan cadowga lagu sheegayo wala socda
ayaku u yimid marka hoona u yeeriyey asagay daba raaceen so dabcan taliyahoodii waa okay marka baabuurkan yimid ba way raaceen beebayaashii waxay adarkaysay iyo nimanka qoryaha waa ka baxeen kulli magaalada waa ka baxeen duurka loo baxa marka dadkii magaalada markaas soo baxeen marka oo maqrabkeen noqon habeenimo magaalada waa la faaruujiyay calaa taal annagana waxaas baxaan raacnay duurkaas aan eeydin la geeyay ayaan aliga tagay marka hadana maalintii kala tahay oo aan duurkii fagsii mareen oo anay aan geed iska hoos fadhina iyo hadba iyo waana sana qof waa yeelay ayay wixii maanday aan jeegan qaad jeeg hooy caan nooga reebtay xal noogu reebeen jeegan qaad halkaas cidaa degane cidaas waxaa nooga soo qaadaa biyo waa next day maalintii kale waay jeegiyan qaaday ciddiyaan u tagay cidda soo adeerkay ahayna oo ayadaan dhihi jiray marka markaas maalmo ka hor ayagana wiil waxaa laga dilay aabihii ciddaas dagaal kaloo dhinacaas markuu soo bilaabana dagaalka wuxuu kasoo bilaabay tuulooyinkaas dagaal lagu soo dilay marka waa agoon ilmahaas markaas cusubin ayaguna waana 90 xilligaas waa waxa waaye 90kii dan ciddii jeegiyan qaatay habriiriyan eedadaan u tagay eed waxaan dhahay ila socoto waxaan rabnaa biyo marka oday adeer ah oo asaguna ciido badan markaas marka reer waxay ahaan xoolo leeyahay dhinaca kale ka yimaadeen marka laamiga iyaguna dhinacaas loo wada aadaayay oo markii qiyaas ahaan hubiyo inay jirto dhinaceeda ah oo waxa la baneynayaa dadkan waxay ka imaanayeen dhinaca oo gaalkacyo iyo Gilsoor iyo San dadkan waxay ka yimaadeen oo ciidankaanu cabad waaq iyo meelahaas ka yimaadeen Gilsoor laftirkiisa marka dhinacaas la aada marka oo waxa loo qaxayaa dhinaca kale oo deegaankan dadka degan ay degan yihiin oo baxdo iyo adagkii meel dhahay loo qaxay marka anaga half way aan sii maroona half way dadka magaalada ka qaxay iyo dadkii reer guraaga waa isku darsameen cidii aan u tagay jeegi aan geystay adeera marka geed hoos jiifay adeer maxamed al dhiijir wada soo xasuustaa maxamed sheekh xasan al dhiijir adeer aan dhiijir marka geedu hoos jiifay habrartii eedada aan u tagay biyaan rabnaa dhahay wiil yar oo agoonaho markaas abhood ayaan la soo dilina way joogaan la wiil dhalinyarana way ku jiraan dadkaas oo nimo weyn oo teenage 20 jir yaal ah iyo oday cadaho waa yeelo geed hoos jiifa odaygan dhaafay eed wixii soo bax jeega ana kugu shubaa Allah waa ina shidana miskiinta kaala eed itir ana jeeg meeshan biyo u shaanay u shubtay dhulkan waa barwaaqo aanay u shubtay aanay iska qaatay waa laabtay markaan dhex sii marhayoona ayay u sii taginaan waxaan hoos fariistay meel yar oo shimbiro ay ilmo ku abuurteen oo shimbiriyan ag fariistay jeega inta dhigtay shimbiriyan la ciyaara inay sugays waa ilo markaas qalab waxa u tadawaa istaagsan waxaan arkay nimankii aan shalax ku soo arkay oo dhinaca u socday iga soo socdo isla ciidankii oo kale ciidankii oo tuutii wato laakiin baawurtii aan wadan waan naxadna waxaas dhaal hadda arigan iyo xoolahan dadkan hadana dilaan dadkan meeshan waxa qaldan isla waa istaagay jeegi meeshan dhigay iyo shimbirihii oo kumiyaan ku ciyaareen waa ordo marka xilligaas shan jir camal ah waa orday adeerkii u tagay geedka jiif horta awowgeen u tagay odag waayeelka adeer cadow soo hadda shalay maqleen dadkan waa cadow waa imaad aan dhah maanday meel lama aadi kara ha idilaan u yiri odagaas waa xasuustaa ilaa hadda adeerkii aad marka adeer maxamedow aan dhah adeer maxamedow cadowgii waa aan dhah marka adeer uu ka dhigto jiro wuu istaagay adeer waa carar marka wiilashiisina wiil aftax la jiray wiil kale ahayn oo ayagina hadalkii maqleen war carar u dhah eedadii markii biyaha ii shubtana waa laa ilaaha illa maxamed rasuulullah quraana iska bilowday inay isku darsanto wiilash waa ordeen marka nimankii xabadii soo bilaabeen marka arkay nimankii ordeen xabadii soo bilaabeen arigii iyo xabadii markuu maqal geedii isku dawrajaan laba wiil oo yaryar oo agoomana way faysal mid jiray geeda isku aadina marka waxaan arkay markaan dadku inay gambasho umadaana la gambaraamo geeda isku aadina geedkii iyo xabadu waxaan u maleysaa shabaq loo wadriga markaas wiilashii barsadeen odayga adeerkad waa dhacaa wuu istaaga asasan u sii fiirsha wuu dhacaa wuu istaaga waa aan badeen waa kasoo laabteen marka nin dhar kala ka duwan wataan wax badridaya oo soon u xirno ul wata ala socdo bistoolada u xiran yihiin kuwa kalena waa ciidan qori wata marka haddaadan u digi lahayn waaba badin lahayd taas adigana fikradaada tuutab haddaa aragto waa cadow waxaad kusoo baratay cadaado shala xaggan kusoo bartay shalaana soo bartay shalab aragtay waxaas waay bas wiilashii ninaa marka inta soo ordo aniga dharbaaxa iga soo jaray wuxuu dhahay cunugtaanaa soo sheegto dhammaan nimankan waa dil lahayn waana maqlaysaa waa maqla waa dharbaaxdo kii marka bistoolada watay waa kii bistoolada watay soo laabto dhahay nimankii war soo laabto yiri was amarkiisa qaatan waa yimaadeen wiilashina waa ka fakadeen adeerkiina waa fakad odaga waayeelka u tageen marka waayeelku waa noo dhowyaa marka ninka wuu dharbaaxay waa ooyay war waa agoonay tiri si war agoontada ma aqaan hadday eeda ahaan lahayn waa wuxuu dhahay waa dadkan waa dil lahayn bas
odagay u tageen saas u ugu mid odag marka cirana waa laha mandayska wuxuu yidhi sakay dila meel aan carar ma aqaan hala dilo ay ku murmeen marka hadilinayo waryaa ma taaba kartiin ninka u shootay wuxuu waryaa ma taaba kartiin iska daay waa yeel waay bas waa soo baxay qajir xamal waa odagaas maxaa sayd 70 ama ku dhawaa laba carari karin ba ma carari karo adeer ma ordi asagan ku soo bilaabay adeer ma ordi karo wiilha idilaan marka dabcan cadowgu waa yaqaanan ayagu marka erayga anigu cadow waxaan u maleeyaa marka maadaama shalay aan soo bartay samaha dadkan duutaa wataa ina cadowga la sheega ayaga leeyahay waxa wax dilana waa ayaga waxa wax dilna ayaga ahaan tirtigii dilay dadkiina dilay bas wiilashii yarkay ani geedkii odaygu markaa ka tageen odaygu waska odaygu usha ku muday waa ka tagay geedkii wiilashii usha maxay ugu mudayaan lama hadli karaan ma hadlaayo wuu hadlaa saas ku yimid waxa isdhahayn ama xoogaa xayi noqda marka maandaysko idiru dhahan mana carari kare iska xanuunsana waa yeelo iska waa soo daalatan intaas uu qax soo socdo war naga dhaafay dhahan aragiyay soo qabsadeen dhowr xabo marka caano oo ciir naqa iska hayo cidu jeeg iyo wax dhiilo haman wax ugu jirna waa qaateen caagi hamankii qaateen alaab maacuuna way qaateen waana ka tageen bas aniga waxaan sameeyay waxaan ku fikiray ayeeyaa meel iga jirto ma ayeeyaa iska aad dhiishay aan jeegayga waxaan ka sii maray meel shimbiraha uga tagay ayeeyaa u tagay ayeeyo geed tagtaan u tagay aan uga tagay marka hore ugu soo laabto waa ka tagtay xagee aad ayeeyo waxay isir cunugtii xuntahay waxa badan waxaan maqal soo noqomayso ayeeyo waa iga tagtay marka dad raacda marka guuraaga may raadkii hooyo iyo dadkii waxaan dhaanba dadkan raadkooda soo daba raacan la markii hore raadkii iyo soo raacay ayeeyo waa iga tagtay meesha ayeeyo u tagay ayeeyaan waay waa xasuusta waa ooy waxaan sameeyay aqoon waay waxaan xasuusta hooyo inaan tiri raadka soo raaca meesha ciid waay raadkii iska daba raacay ciid wala meel dhijiro halkaas tuulo ah waxaan iska raacay raadkii abaar markaas oo ciid waayay eeda geed ayada hoos joogtaan u tag ayay waa ku ooyay maxaa iga tagtay maanta waxay tii khayr Allah ku sii waxaan leeyahay ma soo noqonayso khayr Allah ku sii ina carartay muddo laftaada farxatay biyahan ku keen dhaho cab biyo waa soo caana la soo siiyay ku dhaa biyo lama siin waay marka magaalada yaa la dilay dad ma ku laayeen dadkii dhawaa dhameen ha haye dad badan aan ku dhamaaday waad arkaysa meydadkoodii meydadka inta aan arkaa daan xiyaas 5 waa ka badnaay tuulada kaliya magaalada caado bas cadaada waay tuulada yareed oo dambana dadku waa ka baxsadeen dhalinyaro badan fakada ahayd ha wiilashaas waa fakadeen odagaas iyo labadaas wiil waxa kale la mindhaa hore soo dilaan ma aqaano laakiin labadaas qiso markaas aan joogo meeshaas wax dhimasho maysa sameyn laakiin xoolihii wax arigii qaar ka wadooteen jeegii cidda iyo haamankii ciirta ku jira way qaateen ayeeyaad ka daba tagtay markaa ayeeyaan ka daba tagay kadibna hooyaa geedkii aan hoos fadhin noogu timid oo noo soo laabatay sidii marka ku raacan waxaan ku tagnay meel oo fog oo sii fog oo sida la sheegay cadow ay soo gaaray markii oo la sii fogaaday oo dadka xoolaheeda ahaayaan iska daba raacnay oo meesha markii jooga abtiyaashii aan iska daba raacnay magaalada ayaana laga maqnaa wadama lagu soo laabto xoogaa aan aqliyeystay oo dadkii sheekadooda markaan dhageystay dhaha malakumoodka laakiin aan u malay jiray anigu inuu yahay hal qabiil bas xilligaas malakumoodka waxaan malay jiray hal qabiil kaliya oo qabiilkii markaas dowladdii oo maxamed siyaad baraa jirtay waxaan isdhahay marka hubka iyo ciidanka dowladda ka faa'iideysanayeen qolaada qabiilkana waa uga faa'iideysanayeen saasay ahayd oo xilligaas markaa dadka meesha degano niman waxaan xasuustaa 30 ku dhawaad oo milshiibida la dhihi jiray oo ku soo baxay oo xataa salaan iyo wax u gaad bartiya lagu laayay ceelashii ku daateen marka ilaa hadda abtigay ku jiro ceelashii meydkooda ku jira ilaa hadda waay xanaan waa mahadsan tahay dhulkaas hadda waxaa laga sheegay waxyaabaha laga qoranay ka mid a dhibaatooyin badan inay ka dhaceen inta aan dagaalka sugaya bilaaban oo ciidanka dowladda ay qayb ka ahaayeen dagaaladii qabaa'ilka oo koo soo bilaabanaya ha marka beelihii miyiga deganaa gaar ahaan saleebaanka iyo mareexaanka iyo dhulkaas wada deganaa iyo ceyrka iyo mareexaanka iyo inay weligood basdili jireen oo dad iska qabaa'il oo Soomaaliya oo aan siyaasad ka dhaxayn ay ahaayeen laakiin markii dambe ay dowladdii gacanta u galeen oo awoodii dowladda ay ka faa'iideysanayeen oo hubkii iyo ciidankii dowladda iyo tuutihii dharkii dowladda ay gashanayeen dadka lagu leynayo marka dagaalkii qabiilka wuxuu isku bedelay dagaal dowladda lagu leeyahay dagaal dowladeed dowladdii wali waa jirto dhinacan hadda muqdisho nabada xilligaas ahayd 90 muqdisho nabada ahayd oo 91 ka bilowday laakiin marka dhinacan la leynayo dadkan dad shacab ahayn oo wax qoriya aan haysan marka dowladdu wax raada ma ku lahayd markay timaado wax dhaxdhaxaadinta beelaha intay beel la safan lahayd hubkii dowladda la isticmaali lahaa in qabaa'ilka dowladdu ay dhaxdhaxaadin samayso walahi xilligaas horta ma aqaan say wax ku xalinayeen oo xasuustaydu ma saas uma sii garansiisna inay kala ahaayeen dad dowladeed wax kale laakiin xilligaas jiritaankii dowladda jirtay oo qabiiladan dambe oo hadda isdili jiray waayii dambe oo dagaalada sokay bilaabanayeen qabiilan ku fakarayno anigu markaan dhinac kale qabiil aad dhinac kale ina habeelan ku fakanayay qabiil habel aha laakiin xilligaas ma xasuusto xusuusteedu waxay xasuustaa in dhahay cadowna ay dowladda ahayd
markii dawladdu meesha ka baxdayna dagaalkii qabiilkana waa iska dagaalada dhamaaday qabiilada waa iska yaraaday qabiiladii aan iskala noolaanay oo qabiilkayga iyo qabiilada kale markay isdilaankaygaan la qaxay oo magaaladaas caadadaas dhowr mar dagaaladu ka dhaceen dhowrkaba inta banaanka u qaxnaan kusoo noqonayn laakiin saanadii iyo shidaalkii iyo awoodihii dawladda meesha ka baxay ها dad shacab ah qabaa'il caadi oo Soomaaliya noqdeen qabiil caadi ah isku leeyahay qabiilada isdilaan oo daristo isku muuqda isdil jiray markaas marka waqtigaas aabahana waqtigaas la dilay oo dagaalada sokeeye xiliyadaas uu dhintay aabay wuxuu dhintay 1988 oo dhintay xaga ku dhintay meel wuxuu ku dhintay dhaho waxa lagu dilay dhaho Glensoor dhinacaas waaye oo I think region mudug inuu ka tirsan yahay halkaas aabay iska xoolo dhaqata oo aan ahayn anaka reer markeen hore aabay xoolo dhaqata iska ahaa marka xilliyada dagaalada soo bilaabanayeen oo malnaay xillidaas ay ahayd oo aabay dhintay marka aabay xusuusteedii ma xasuusto ma ana arkin man la soo korin marka soo u dhacay dilkiisa intii horta laga sheekeeyay waxaa dilay oo muxuu ahay oo gacantiisa sabsaday ahaa ogaadeen inuu ka jeeday aan jeclahay ogaadeen miyaa mise adiga ogaadeen mise qaatuma state labaas mid inuu ahay aan jeclahay uu ka soo jeeday marka hawiye iyo daarood wax la dhihi jirtay oo maayada marka laga sheekay marka qabiiladaas uu ahaa ma xasuusto laakiin in diya laga qaatay in la leeyahay ninkii lagu heshiiyay ninkii inuu hadda inuu nool yahay inuu dhintay ma naqaano annaku marka waalahayga la ka sheekayna ma xasuustiisii xoog u dhacay marka dilkiisa ma ciidan dawladda baawra maray baawra oo kas loo marsiyay baawr dawlad ma wadato marka baawr waxa la dhahay dawladda lahayd iyo shacab lahayd labaas mid in la dhahaan xoog iyo kala xasuusan marka waa laakiin ninkii waday waa la yaqaanay habal la dhigi jiray la dhahay magaciisi waxiis waa la yaqaanay waa la dilay marka aabay Glensoor lagu dilay waxaan loo maleeyay inaan reer Glensoor nahay oo aabay waxa loo maleeyay inuu Glensoor yahay Glensoor marka dadka way hor deganaa jiray waxay u badnaayeen waxay ahaayeen wagardhaca deganaa jirtay iyo habargiista ayaguna sidoo kale saacadka iyo salaamaanku ay laakiin ku yaraayeen oo sidii maqal ugu ahay ku yaraayeen laakiin idaas badnaayeen marka saas waxa loo geeyay la dhahay dhinaci kale oo wagardhaca joogtay la dhahay habal la soo dilay shadana xalna la soo dhintay marka halkan la geeyay ninkan qabiilkan ma ahan waa lagu murmay qabiilkiisu kan ma ahan qabiilkan uu leeyahay caado iyo qabiilkiisu waa marka muusan dabcan ma la aqoon xilligaas qabiilka saa'idka marka waxaan loo maleeyaa inaan reer Glensoor iska nahay tuulo Glensoor meel ka baxsanaan deganeen waa la waday abaa xal dhamaydkiis waa la qaaday waxaa la geeyay cadaado waa la geeyay caada lagu duugay marka diyo in la kala qaatay aan jeclahay marka shil uu ahaa ma ahana qabiil looma dilay ninku hawi ahaan loo dilay hawi ahaan loo dilay ninkaas wuxuu dilay hawi ahaan marka man aana hore u jirto hawiye iyo qabiiladan daarood ahaan ka dhaxaysmay ka wadeen ma fahmin laakiin saas lagu dilaa laakiin dad kulliba awood laho dawlad sheeganay ahayn dad awood lahayn oo aan hadalkooda hadal lagu soo celinay xanaan shidana ayay ahayd qaybtaas ayay noo joogaysaa waraysiga qaybta koobaad qaybta labaad ay noo balan hadduu Allah ugu dilo ogolaado intaynu mar kale kulmi doono waxaad leenahay nabadgalo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii fakira qaybta hoose ayaad noogu reebi kartaa ee commentiga nabadgelyo si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid